السلام عليكم كسو دوادا channel كيغا مدن سومالي فود بريها ويدي كيرا مشغولة رالي النقطة إن شاء الله وحرجينا يمكن الفيديو يبادن إذن سوقلين دونو ما أنت عنtada قروح بدن وقادو أيان ربا إنان إذن لوداغو وباستو إيو ستيك chicken steak أما chicken بسكيتي قفو سيدو يقانو intaan fiidiyoogeena guda galin hadii aad channelkayga ku cusub tahay waxaan ka codsanayaa fadlan inaad subscribe saarto cuntadeena hadii aan ku soo noqdo cuntadan waxaad u baahan tahay waxyaabaha soo socda si aad u samayso marka ugu horeysa waxaad u baahan tahay toon sidoo kale waxaad u baahan tahay basbaas ama paprika qofka aan basbaaska kulul jeclaynaya isticmaali kara khal ama vinegar ayaan sidoo kale isticmaalayaa waxaan isticmaalayaa in yar oo milix ah sidoo kale xamar ama tamarind dadka badan ay ugu xiran way oginaan xamarta la'aanteed wax badan sameeynin waxaan kaloo isticmaalayaa curry powder ama curry in yar oo toon ah ama coriander iyo chicken steak-gii ama digaaga oo steak laga soo sameeyay badan anaga meelaha markaan ka siibsanayna kuwa xalaasha meelaha Soomaalida tagnaa marka waxaan ku leeyahay si yar oo khafiif ah inay noogu jaraan ayaan jecelnahay way hadhow tolo si fudud ayuu kuugu bislaanayaa waxa aan doonayaa inaan sameeyo buxaaraadkayga ama waxyaabihii aan soo diyaarsaday xawaasheedii kala duwanaa ayaan digaagayga dusha ka marinayaa sida aad arki doontaan waxaan doonayaa inuu si fiican gunta uga galo all the spices ama all the herbs aan sameynayo inuu gunta si fiican uga galo ayaan doonayaa labada dhinacna waad ka marinaysaa waxa la doonayaa yani xawaashkaas inuu gunta ka galo oo hadhow tolo marka aad sameynayso steak digaaga steakiisi ina marka aad sameynaysid in yani dhadhan fiican kaaga soo baxo ayaa muhiim ah marka waxaan sameynayaa meel ayaan ku ridanayaa waxaan insha Allah dabooli doonaa waqtina waan kaga tagi doonaa haduu Ilaahay raahdo intaanan sameyn laakiin yani waxyaabihii ii dhinaa sidii khalkii xamartii iyo kamasaradii ayaan dusha kaga sii saarayaa وانت ugu dambeysay aan xawaashayda aan isticmaali kamid ka ahaa nus saaco ayaan talaagada yara galiyay intuu xawaashayda isku wada dhaxgalayeen waxaan rajaynayaa codkayga si fiican u maqlaysaan maanta xabeeb baan la soo yara toosama codkayga xidhan imika waxaan bilaabayaa inaan dubo ama aan shiilo dab khafiif ah ayaan ku sameynayaa dhinac walba 5 daqiiqo meelaha ayaan ka dubayaa si uu u bislaado hadhow toolana yani si fiican ayaan u sii bislayn doonaa waa 5 daqiiqo kaliya kuma bislaanay digaagu laakiin waxaan doonayaa inuu ii yara adkaado si uu hadhow toole u kala go'in oo yani mid walba quruxdiisa hadhow toole igu bislaato dab khafiif ayaan marka hore dhinac walba 5 daqiiqo kaga yani dubayaa si uu yara bislaado marka hore waxaan rajaynayaa fiidiyowga insha Allah inaad daawan doontaan viewskana ama aad sare u kicin doontaan insha Allah aad comment badan ka tagi doontaan iyo like marka fiidiyowga la saaro waxay ka caawisaa fiidiyowgaasi inuu yani kor ka maro oo YouTube dadka kale u recommend gareeyo ama dadka kale inay fiidiyowga helaan ay ka caawisaa fiidiyowga markuu uu muxuu ahaayay like badan helo digaageena imika uu inoo soo bislaaday maasha Allah tabaaraka raxmaan sida aad arkaysaan ayuu soo baxay sababtan marka hore idinku lahaa marba dhinac in yar oo fudud ka duba oo dabka ka gaabiya because waxaan diidaynaa inuu kala daato ama uu kala go'o maqlahaygii oo igu sii jiran dhandhanaankii ka soo haadhay digaaga ayaan rabaa imika inaan baastadeeda ku samaysto baastadan wax hilib ah kuma darayo
ama duqada ama digaaga wax kale kuma darayo kaliya ta khudaar ayaan ka sameynaya saad arkaysan imka waa basal iyo barbarooni ayaan isku soo shiilay marka ii soo yara shiilmatay oo ii soo yara bislaatay waxa aan ku darayaa in yar oo basal baar ah ama onion spring hadana basal baar ka jecleen waad ka deyn kartaa dabool dab khafiif ah ku dub mar walba markaad sameynaysid cuntada waa inaad dab khafiif ah ku gubtid kadibna in yar oo 8 daqiiqo saacan ku darayaa sababtaan ugu dari waayay muxuu ahaayay hilib ama shiishidan ugu dari waayay waxa weeyaan because already steak ayaa ii diyaar ah maraba too much protein inaan meesha soo dhaxgeliyo xawaashyadan isticmaalaya waxa weeyaan xawaashada diyaarka ee baastada loogu talagalay marka pasta spices bay yiraahdaan dukaanada Soomaalida laga helaa kaas ayaan imika milqaacad yar mugeed ku daray sidoo kale in yar oo milix ayaan ku daray waana isku yara daboolay xamar ayaan ku daray intii hore iga soo hadhay in yar oo kala meelaha 2 milqaacadood ad wax noqonaysa milqaacada caadiga wax lagu cuno mugeeda oo xamar ah ayaan ku daray sidoo kale in yar oo biyo ana waan ku shubayaa waana yara daboolaya inay sooskaas isdhex kalan doonaya pastada already waa soo karkariyay waa ii diyaar inaan ku caseeyo ayuun baan rabaa marka imika waxa sooskayga uu ii bislaaday sooska waxaan sameynayaa weel ayaan ku shubanayaa kaas waxaan rabaa pastada inaan inta cad ku rido hadana sooska dusha kaga shubo hadana in yar oo kala cad aan ku rido ilaa intuu soosku ka wada gaarayo pastada maadaama ay bisishahay ma rabo inaan yani biyo badan oo soos biyo badan leh aan ku shubo oo iga jilicdo ma doonayo cuntadan yani qof walba uu sameyn karaya maadaama dad badan oo channelka ay ku xidhaysan hore u sheegay arday ah ama yani rag u badan ama dumara waxyaabo fudud oo waqti badan ka qaadanay ay dadkaasi jecel yihiin hadii jeer inay sameeyaan marka daa'iman daas waan fikradaha noocan idin la yimaada pastada si aan idin sheegay marba layer ama marba qayb ayaad ku ridaysaa hadii yani qof ama laba aad u karinaysidna kulli cuntadan karinaya in ka yar ayaad sameynaysaa soo waqti ka sii yar ay ka qaadanaysaa adigana inaad ku sameyso pastada marka aad karkarinayso ugu horeysa xoog ha u jilcinin waayo dab labaad ayay galaysaa hadii kale yani wax oo naf lahayn ay noqonaysaa marka iyada soo bislaanayso in yar adag oona si fiican u jilcin oo si fiican u bislaanin ayaad ka qaadaysaa maadaama ay dab labaad galayso marka imika cuntadeeni almost waa ready waxa aan sameynayaa si fiican ayaan isku dhaxgelinayaa si soosku pastada u wada qaadato waana yara daboolaya hadii Ilaahay dhaxdo dabkana aad ayaan uga sii gaabinayaa because waxaan doonayaa biyaha soosku inuu ka guro oo ay dry yara noqoto ama ay yara qallayl noqoto pastada wax suuga ama loo sameynayo wax kale oo duqadii wax lagu shiiday oo kala saaridi sheega ma la sameynayo kaliya ta xaween pastada khudaarta lagu sameeyay iyo steak gaarka loo sameeyay ayaa la isku cunayaa marka cuntadeena waa diyaar ma sha Allah tabaaraka raxmaan waad arkaysan in bislaatay sooskii ama aan suugadii aan ku sameeyay yani ka gudhay wayna qalashay imika waxa aan guda galayaa inaan cuntadeeni soo qadimo ama aan soo diyaariyo saad u aragtaan sida ay soo baxday hadii fiidiyoyada noocan aad jeceshihiin inaan idin soo badiyo insha Allah comment-ka iga soo taga dhawaana waxaan idin bilaabi doonaa duulaada routiinka waa dadku aad ba routiinka u jecel yihiin mar walba waa la iga soo dalbadaa intii igala soo xidhiidhay Instagram-ka isoo weydiisay maalmahan waxa YouTube-ka uga maqnaa aad ayaad u mahadsantihiin ilaahay idin sharfa waad soo sharafteen waad iga soo war doonteen khayr uma ku maqnaa waa iska yara mashquul mooyaane dhibaato kale ma jirin marka insha Allah waxaan rajeynayaa inaan ku soo noqon doono kulli markaan muddo ku soo yara noqdo hadana wax laga yaabaa inaan break yara qaato waayo waxyaabo kale project kale ku yara jiraan ku yara mashquulsanahay Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adhaban nar cuntadeeni sidaas ay soo baxday waxaan rajeynayaa inaad fiidiyowga ka faa'iideysateen fiidiyowgiisa inta aynu ku kulmi doonana waxaan idinkaga tagayaa fi amaanillah Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adhaban nar ilaahayo inta haysatana u siyaadi u barakay ilaahayo inta aan haysana si intan iyo in ka badanba hadii ilaahay ilaahdo ma jiro hoos ruux u geeya amaba hore kuu kaxeeya naftaada adaa hogaansha adaa haya keenadeeda halkaad u jihayso weeye kun haybood noloshu weeye kun hawlood baa ku xeeran kun bay hakisaa dharaarba
kunbayse hagaajisaaye haddaad ku hungowdo kaalin hareer kala soo tijaabi.